حديث كان السدحات عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كان وحالورنا يا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الله كرهالي نغضأسي وعبيه سبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم أيا خطب الناس دتك أخذ بدي يوم فتح مكة مالك مكة لفرناي مكة مركو نبي عليه الصلاة والسلام وفرتي مالك وفرناي أيو دتك أخذ بدي مركز وحيري فقال وحيري يا أيها الناس دذو إن الله سبحانه وتعالى قد أذهب وتكسي عنكم إذنك حقين عبية الجاهلية جاهل نمذ كبر كذا يو تكسي يو إسلوين ذي وتعاظمها يو إسوينيسين تذ بآبائها آبياشا إسكوينيسيسو فالناس دتك مركة رجلان ولوقف دتك لو مدن بين نقضان بر مد بارئة أو تقي حدنا الله سبحانه وتعالى كعب صدوس إلاليو كريم حدنا شرف له على الله اللوين الدشيش الشرف كله وفاجر يوم متفاجر شقي حدنا أيان درن أهل النار هين حدنا ليتو على الله اللوين سبحانه وتعالى دشيش كليتو والناس دتك بنو آدم وآدم عرورت سوي وخلق الله سبحانه وتعالى وأوري آدم من تراب عرأي كأبوري قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى وحيري يا أيها الناس دذو إنا أنغو خلقناكم وان إذن أبورني من ذكر حقي سيدن كأبورني واللبوي وأنثى يوددك حقي يعني إذن كأبورني وجعلناكم حان إذن كيلنا شعوبا شعبا يعني إذن كيلنا وقبائل قبيلوين sababtan maxay tahay litaarafu inaad isku garataan isku aqoonsataan way inna akramakum kan idinku sharaf badan cindallahi Allah subhanahu wa ta'ala agtiisa atqaakum wa kan idinku cabsi badan way inna Allah subhanahu wa ta'ala alimun wa mid cilmi badan way khabiirun hadana gun og marka xadiidkan wuxuu noo sheegayaa nabigan alayhi salatu wasalaam maalinku uu furanayo Makka inuu dadka u khudbadeeyay u muxaadireeyay wuxuuna ku yiri nabiga alayhi salatu wasalaam dadkaas wuxuu ku yiri yaa ayuha naas dadu ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu idinka tagsiiyay jaahilnimada kibirkeeda uu idinka tagsiiyay iyo isla weynadeeda qofka muslimka ah inuu kibiro ama inuu isweyneysiyo xaraam bay ka tahay sababtoo kibirka rabbi subhanahu wa ta'ala ya iska leh marka nabiga alayhi salatu wasalaam wuxuu leeyahay inna allaha qad adhaba ankum عبية الجاهلية الله سبحانه وتعالى وإذن كتكسيي جاهل نمذ كبر كذا أيو إذن كتكسيي ما أنت كذب إناد كبرتان معهن وإناد نقطان دد مسلمين أو متواضعين أو إسلو الدقاء الله سبحانه وتعالى كدنبية سيدوك الوحير النبي صلى الله عليه وسلم وحو إذن كتكسي الله سبحانه وتعالى وتعاظمها بآبائها إيو إسوينيسين تا إسكوينيسين إيسو آبياشيد qofka markuu kibraayo ama isweyneysiinayo wax baa sabab u ah waxa kamid ah sidii qabiilkiisa iyo aabiyaashiisa inuu isku weyneysiyo ama xoolihiisa ama jagadiisa marka wuxuu leeyahay nabiga sallallahu alayhi wasallam sidoo kale wuxuu idinka tagsiyay inaad isku weyneysiisaan aabiyaashiina oo dadkaad ugu faantaan inaad tihiin aabo wanaagsan inaad ka dhalateen ama dad wanaagsan inaad ka dhalateen wuxuu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam fannaasu rajulaan dadku waa un labo والله قفوي بر تقي كريم على الله قف بارئة والله سبحانه وتعالى حدنا كعب صدا أو شرفي وقيمة أسقناته الله سبحانه وتعالى دشيس وحكوليه قفكاس شرفي وقيمة يوليه هاي سببت قفك مركو بارئ ويهاي حدنا الله سبحانه وتعالى وكبقى وكعب صنايو قفكاس شرف يوليه هاي الله سبحانه وتعالى أكتيسة مدوا قفكاس وي متك لواد وحي النبي صلى الله عليه وسلم وفاجر شقي هين على الله قف فاجر ورب سبحانه وتعالى كفرتي حدنا الشقية أيان درن أو نصيب حون أو أهل النار هين على الله سبحانه وتعالى دوشي سن كليته قف قيمة له معهن قف الله سبحانه وتعالى أكتش الشرف كله معهن دتك لواد اسمدهم بين قدان قف مؤمن والله سبحانه وتعالى كعب صدا أو شرف في قيمة أسقناتي iyo qof gaal ama munaafiq ah oo Allah subhanahu wa ta'ala ka furtay oo liitay labadaas mid bay noqdaan sidoo kale wuxuu nabiga sallallahu alayhi wasallam
wannaasu banuu aadam. dadkan oo rabbi subxaanahu wa tacaala u khalqay waa aadam caruurtiisa weeye. qof walbo insaan ah wuxuu ka mid yahay aadam caruurtiisa. wa khalaqa allaahu aadama min turaabin. allah subxaanahu wa tacaala aadam wuxuu ka abuuray caro ayuu ka abuuray. marka qofna inuu u faano ma ahan, qofna inuu ku kibro ma ahan. dhammaanteen waxaan ka imaanay aadam ayaan ka imaanay, caruurtii aadam ayaan nahay. aadamna caro ayaa laga abuuray. marka qofka inuu iskibriye ma ahan. wuxuu yidhi allah subxaanahu wa tacaala yaa ayuha nnaasu inaa khalaqnaakum min dakari wa unthaa. wardado waxaan idinka abuurnay lab iyo dhadig ayaan idinka abuurnay. labkan waxaa loola jeedaa nabilaahi aadam calayhi salaatu wasalaam. unthaa dhadigan waxaa loola jeedaa waa xaawo, hooydeen xaawo, amaba waxaa laga dhigi karaa hooyo iyo aabo. wuxuu yihi allah subxaanahu wa tacaala wajacalnaakum shucuuba wa qabaa'ila litacaarafuu. waxaan idinka dhignay shacab ayaan idinka dhignay iyo qabiilooyin. sababtan waxay tahay litacaarafuu, inaad isku garataan, isku aqoonsataan. ma ahan inaad isku faantaan, inaad kibirtaan ma ahan. keliya waa inaad isku garataan wey. ina akramakum cinda allaahi ataqaakum. kan idinku sharaf badan, idinku karaamad badan ilaahay agtiisa waa kan allah subxaanahu wa tacaala ka cabsada wey. ina allaha caliimun khabiir. allah subxaanahu wa tacaala waa mid cilmi badan haddana gun og wey, oo khabiir ah, addoommadiisa wuu ogyahay. marka xadiidkan waxaan ka qaadanaynaa qofka muslimka ah inuu ku dadaalo allah subxaanahu wa tacaala cabsidiisa. allah subxaanahu wa tacaala agtiisa markaas qiimayuu ku lahaanaya. qabiilka ama xoolaha uu haysto ama jagada sharaf laguma lahaado. qofku wuxuu qiimo ku yeeshaa qofka muslimka ah rabbigii subxaanahu wa tacaala markuu ateeco.